general indacade dhibkii uu sameeyey danjirka qasoon jawaab ma laga bixiyey maxaa looga bixin waaye maxaase uu ka dambeeyey Saadir John jawaabtii uu bixiyey dawladdu jawaab may ka bixisay haddayna ka bixin maxaa looga bixin waaye xalay un baan faraxsanayn 24 hour waxaa ka soo wareegtay naxdin kale muqdishooy muranka goormaa dayn muqdishooy ilaahu khaatimada khayr noogu qatin awrta iyo geela madaxtooyada lagu qalayo laleeyahay prime minister kii hore ayaa bixiyey oo ku faanaya ma runbaa qabiilka iyo qaranka midkee awood badan Soomaali maxaa siinaysaa percentage qabiilka awood badan okay Soomaali diinta islaamka ay aaminsan yihiin iyo qabiilka midkee awood badan inteed siinaysaa boqolkiiba dawladnimo been ah iyo magac been iyo lacag xisaab la'aan ah dawlad la'aan lagu helay ya iyo dawladnimo iyo qarannimo muqdisho waxaa haysata saddex mushkiladood waxaan doonayaa tala inaan siiyo militariga Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed dhibka ka soo baxaya xamar farxad la'aanta militari ku saabsan maxaad la wadaagtay markii militari la dhisay seedu arkaysay tala ma siisay dawladda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed bal tala yar oo siiyay dhowr sano ka hor yaan daar dhageysi wacan militariga Turkiga inoo dhisayaan aad baan ugu faraxsanahay iyo wadamada kalaba laakiin waxaan isoo gaaraysa xulxud in farmaajo maadaama ay isku fiicnayn gobolada Jubbaland iyo Puntland halka aynan equal opportunity yani aynan ka helaynin fursad dhalinyarada yaryar militariga iyo booliska noqonaya halka waxaan jeclahay in dawladda laga dhaadhiciyo farmaajo yuunan u kala eexanin militariga iyo booliska hadday tahay gobol iyo tuulo iyo qoys militarigu waa in laga dhaxelaa qoys kasta oo Soomaali ah degmo kasta oo Soomaali ah haddii dhibka ka dhaxeeya Jubbaland iyo Puntland ay dadka halkaa ku dhashay ay fursad lama u noqoto booliska waxay noqonaysaa tacaba ay beerul ma ah gaar ahaan Muqdisho dadka fursadda inta badan qaadanaya waxaa ka mid noqonaya dadkii xoolaha dhacay caruurtoodii waxaa ka mid noqonaya dadkii dawladda boobayay dadkii dekada iska boobayay dadkii dawlad la'aanta ka bayع mushtari ku faraxsan dadkii caalamka maxaan ku xalane الناس نوجين كو هايستي موداي inay dan u yihiin laakiin iyagana dalkooda ay biilqaysanayeen marka militariga waxay noqonaysaa mooryaantii qayb kamid ah in military laga dhigo bini'aadanka maskaxda wuxuu aaminsan yahay waxa weeyaan ilaa oo laga dhaqo military inteen lag buu noqon karaa marka bari dadkii mooryaanta ahaa military la soo tababaro oo is arkaan inay xaafadihii kale ka maqan yihiin militariga iyo booliska iyagu badan yihiin halka maynan tacaba ay beerul ma aha maynan noqonin dadaalkii farmaajo iyo ciidamada waxaan jeclahay inaad kula talisaan Jubbaland iyo Puntland iyo gobol kasta horta bal equal in laga soo qodo ciidamo isla eg haddii taa dhici weydo isagoo farmaajo ka cararaya labada gobol oo xaggan u leexanaya wixii khayr ah u badiyo laakiin bari armay noqdaan kuwii xamar ka eryi lahaa armay noqdaan kuwii xamar gubi lahaa mar labaad qabiilka iyo qaranka Soomaali waxa awood badan qabiilka diinta
islaamka iyo qabiilka waxa awood badan qabiilka taajirnimo xamar iyo magac xamar lagu helay mooryaan iyo qabiil midkee xoog badan waxaa xoog badan magac beenbeena iyo lacag lagu helay dariiqa xaaraana haddaba maadaamay meel kasta ay qabiilkii u xoog badan yihiin yayna haddana ciidamadii u xoog badnaanin hal qabiil taladaas farmaajo ha la siiyo tii hore waa diideen taa siiya xitaa nimanka la yidhaaho jabuutiyaanka waa inay ciidamada ku jiraan waa in qoys kasta oo soomaali laga helo reewqooyiga waa inay ku jiraan oy ka buuxaan markaas bay noqonaysaa laakiin waxaan ka cabsan in ay berri ciidamadii la tababarayay dalka inay difaacaan inay noqdaan kuwii dowladda burburinayay kuwii bahdilka dowladda ku samaynayay kuwii dowladda farmaajo iyo dowlad kastoo timaada ka eri dabcan markuu yimaado nin hawiye maxaa dhacaya dee sidii cali mahdi iyo maxaan ku dhahaa iyo caydiid unbay noqon waxaa kaloo iyadana guuldara oo taagan caasimadda muqdisho haddii ay hawiye iska bedeli waayaan sidan doorkan soo socda hadday hawiye ay istoosin waayaan waa in laga bedelaa caasimadda ha la bedelo ee xaggee loo bedeli meeshii aan jeclaa in loo bedelo waa hargeysa allahu khaatimada khayr waqti okay talooyinkan waxaan siiyey waqtigii farmaajo la doortay bilaabantay xudxudha iyo khilaafka farmaajo iyo reer kablalax reer puntland iyo jubbaland waxay soo gaadhay ciidamada isagoo ka cararaya waasay sheegayaan reer kablalax isagoo ka cararaya 8 milyan waa markay fitan soo bilaabaysay 8 milyan isagoo ka cararaya iyo maxaan ku dhahaa majeerteen iyo madaxweyne asman ayuu hawiye iyo raxan weyn booliiska buuxiyey waasay ii sheegeen kablalax dabcan mana rumaysan mana beensan okay maanta yani idi su-aali ama aad ila qaybsanaysaan baraha bulshada intaas waxay ahayd luuqa talooyinkan ku bixin jiray waxaan su-aali dhegaystaha soomaaliyeed ee muwaadinka dhegaysanow waxaan ku su-aali dowladda waxaan su-aali puntland jubbaland iyo gobol kasta waxaan su-aali horta shantiinan koonfuray shantii la sheegi jiray ee shanta ahayn ee koonfur keliya shan laga dhigay horta shantiinan ma u siman tihiin ciidamada iyo booliiska iyo security-ga mise gobolaa dulman suhuur soo dhawow faaduma soo dhawow mucaarad iyo muxaafid ba ahaw anigu waxaan jeclahay mucaaradku inay ag fadhiyaan soo dhaweyn abti dimaashi ii soo dhawe dadka okay shacabka soomaaliyeed waxaan su-aali ilaa qabiil daymaysaan horta qabiil kasto meeqaad military ku leedahay meeqaad booliis ku leedahay saasaad jeceshi maamanaya ama gobol kasto meeqaad militariga ku leedihiin booliis ku leedihiin security ku leedihiin dembiilayaasha ku leedihiin mise bahasha farmaajo isagoo ka cararaya labadii kab iyo laxdii unbuu hawiye hoo yidhi bariiska wax kasta hade markaa maanta ma u aayay hadday taasi run tahay haddaba inta doqomada ee kablalaxa way ku farxayaan laakiin weli hoogiaan ku jiraa kablalaxow iyo soomaali okay xalay wanigii farxadda idinla qaybsaday iyo ducada okay maantana naxdin waad oo maqasheen in farmaajo ninkii saadiq joon ahaa iyo ninkii indhacda ahaa iyo kuwii kale ee dowladdu wax soo bartay inay geel ku qalanayaan madaxtooyada horteeda unukaa iskale xamar unukaa iskale xamar hawiye okay haddaba unukaa iskale maxay inaga bedeshay caydiid iyo cali mahdi jabkii kala raacay huuna hawiyow huunu hawiyow 3,001 jeer baan kaa danqan okay 3,001 jeer baan hawiye kula ahay inta daarood aan ahay dhiig igu jirta unbaa haddana aan hawiye ahay
oo ilaa maalinkii doombire aan guursaday oo awey guursaday ilaa maanta wayn isguursanaynaa hooyadu maynan qiimi lahayn war innagoo dhan waxaynu nahay 3,001 jeer baad hawiyow daaroodtii 3,001 buu daarood hawiye yahay 3,001 jeer baan reesha shaqahay 3,001 jeer baan dir ahay war heede hooyada meeshaan ka habaaranahay waa hooyada roolkeedii baynu dafiray war maxay iga maqan hawiye haddaan 3,001 jeer aan hawiye ahay ama daarood ahay ama isaaq ahay isku lambar aw xuquuqdii dhiiga iyo dhacaanka war xitaa saynis ahaan maydaan ogaanin hooyada iyo aabuhu inay equal yihiin xagga jiinka okay hawiyow waxa idin horta qoomka inoo talinaya waan istaahilnaa haddayna shacabku xumayn ma dowlad fiican baan heli lahayn shacabka ayaa xun okay saraakiishii loo tababaray dowladda inay difaacaan sharafta soo celiyaan maanta waa kuwa geela ku qalan madaxtooyada horteeda Saadiq John oo dowladdu wax soo bartay in cadda oo inqilaab sameeyay weli taariikhda ma lagu arkay sargaal intuu inqilaab sameeyay haddana madaxtooyadii hortiisii ku hanjabayo geel qalanaya oo lacagtii laga dhacay dowladda xasan khayre ama xasan sheekh lacagtii dowladda laga dhacay baasha maxaa loogu orday madaxtooyada waa inaan lacag dhacaa hadhowna mucaarad noqdaa hadhowna aan guulaystaa la in anaa bixinaya biilkii askarta iyo ciidamada dowladnimada ka jirta xamar maxay tahay mar haddii saraakiishii dembiga gashay haddana maanta ay wadooyinkii la dhisay intay dumiyeen oo haddana madaxtooyada horteeda geel ku qalanayaan war geel xagee ka keenteen ilan geel ma idin hawiyo abgaal baa ilan geel lahaa misoo soo xadeen waa guuldarro Soomaali usoo hoytay haddii farmaajo uu ciidamada ka wada dhigay reer hawiye okay tacabaay beerun ma aha maanta adu ayday haddii ay taasi run tahay nin kastoo ila wadaag horta ciidamadu ma waxay u badan yihiin hawiye hadday usii badan yihiin ma abgaal bay u badan yihiin habargiina marka meesha maxay taalla intaa ila wadaag okay farmaajo maxaad siinaysaa marka hadduu shalay daarood carar ahaa maanta maxaad odhan xamar haddii la dumiyo oo xabade ka dhacdo eriyay daaroodkii ma jirta ee hawiyey eriyayaan in saraakiila oo hub haysata oo la burburisa xamar soo ma joogto shalay siyaad barre wuu diiday in la dumiyo iyagaa duminaya buu yidhi haddaba maantana afar askar baa idinka joogta meesha iyo xabad baarlamanka iyo xabad baycmushar ah daarood meeshuu joogaa harxan weyn meeshay joogtaa isaaq meesha joogaa hawiyow meesha xeerada salkaad ku ordaysaan ee duminaysaan maxay tahay madaxtooyadan xabad baanu kaga saaraynaa waxaan ku yidhi isoo dira qoys kasta oo Soomaali isoo sheega kuraygooda iyo odayaashooda hanjabaada intay tahay waxaa la soo diray hawiye aan tiro lahayn oo hanjabaya oo ku faanaya wixii laga ashahaadan lahaa wixii laga cawdbilaysan lahaa oo ku dabaaldegaya inay xabade dhacdo oo daaqada looga dhaco iyadoo bil Ramadaan la joogo dowladnimada aynu sugayno maxay tahay caasimadda in ay ku sii nagaato xamar maxay tahay aniga waxa iga tala farmaajo hal talaan siinaya farmaajo waxay soo gaadhay khudbadii fiicnayd ee soo gudbisay ee Soomaali ku faraxday inta aqliga lihi waxay leeyihiin khudbad khayaanay ahayd diyaaradu diray uu soo raray ciidamadii gobolada oo dhan xaggana af macaan buu ka yidhi xaggana khaa'in weeyaan saasaa lagu leeyahay waxaa la ii sheegay in baarlamanka lagaga takhallusayo oo mooshin laga keenayo ra-iisul wasaaraha ma kuwii sharwadanayaasha ahaabaa sidaa samaystay haddii arrintaasi ay baarlamanku rabaan iyo adigu ka joog waxaa ka faa'iido badan inaad istiqaalada dhiibto intaadan dhiibinna inaad odayaal dhaqameedka iyo culimada iyo Soomaali oo dhan isku keento inta ay xamar ay dumi lahayd inta askarigii iyo ciidamadii aan dhisayay ay kala carari lahaayeen
soomaaliyay baashi waan soo wareejin ee halkeen idin dhigaa waxaa dhici karta inay yidhaahaan waa balnoos yahay oo waan soo heshiinaay oy qaadato 5 sano 6 sano talada farmaajo aan ku siin hal qof ood bedeli karta ama emotion ka keeni karta xaaladdu sida inta tahay ma jirto haddii maskaxdaada ku jiro inaad ka takhalusto ra'iisul wasaaraha oo dirac aad ka dareemayso ama idin khiyaamay sida la leeyahay ha isku dayin hana ku fikirin inaad bedesho Roble haddaad bedesho baadrool iyo kibrid baad isku dartay okay sharaf darrada waad kaga tegaysaa meesha iskiiji waxaa dhaamay istabci maalintii afrika aad u duulaysay hadalladaydii maydii soo geliyaa waan ka naxay war afrika tay naqaanayso ma aha soo tii yurub maraykan biilayay ma aha soo tii afrika laga biilayay ma aha war guuldarra halka ka soo dhacaysa haddii berri ay yidhaahaan baarlamanku waxay doorteen waan ka soo horjeednaa ma diidi karo hadduu diidana waa khasaare istabci iskiiji waxaa ka fiican istabci the more aad istabciso the more shacabku ku jeclaanayo the more aad tanaasul samayso the more shacabku jeclaanayo haddaba farmaajo waan ku faraxsanahay inaad baarlamankii waan ka noqonnaa aad tiri ood guuldaradii damisay oo diiday inay xabadi xamar ka dhacdo haddaad taa samaysay oo hadda maanta aad doonayso inaad Rooble ka takhalusto iskaga tag meesha taladaana qaado Soomaali u yeedh odayaal dhaqameedka baarlamanka waxaa ka awood badan odayaal dhaqameedka u yeedh culimo iyo baarlaman iyo isku yeedh waxaa tira xaggeen idinku dhiiba baasha intayna sii kala cararin xaggeen idinku dhiibaa okay hawiye majority-ga media waxay ku faanayaan inaan xabad kaga saarayno wax lagu faana waa bir Ramadaan inta farmaajan siinaya iyo baarlamankiisa maxaan siiyaa hawiyow daarood meesha ma joogo raxaweyn iyo dir ma joogaan in yar baa joogta madaxtooyadu haddaad ixtiraami weydeen inay Soomaali ka dhaxayso caasimadda ka rara meeshan oo meeshaad rabtaan geystaa tiraaheen ficil haddaba Soomaali intay shirto ha ku heshiiso meeshay caasimadda geysanayaan hawiyaa fasaxay baashi way fasaxeen daarood ama kabalax waxaan leeyahay inta jecel dawladdan waxaan leeyahay ha isku dayina inaad tirahaan farmaajaanu qabiil ugu hiilinayna qaran ugu hiili haddaad keli weydo farmaajo iscasil dah ha isku dayina in daaroodow aad tirahaan farmaajo sida hawiya u fikiray baan u fikiri oo qabiil baanu ku difaacay ha ku fikirina iska ilaaba waxaa kaloo ku fikirtaan guuldaradan waxaa saldhig u ah Puntland iyo Jubbaland maxaan u dulmiyay waxaa daarood oo kablalaxa ayaa u ah sabab haddaynan maanta dawladda 4 sano ee ka soo khasaarin lahayn labadaa nin ee kablalax dhibkani maanta ma jireen diintu way ogashahay inaad xaq walaalka ugu heliso laakiin xadaraha ugu helin reer kablalaxow si xaqa farmaajo ugu heliya si xaq darra ugu helina sida xaqa ha ugu helina cudurkan cabsidan idinku jirta wuxuu rabaa sidii adeerkii idinku jirta iska saara waxaa ii muuqata jabhadihii dawladdii Soomaaliyeed dumisay in ay dhisan yihiin weligoodna ay dhisnaayeen haddana boorka laga jafay inta daarooday waxba ka jafina reer Puntlandow waa jabkiina waa baabi'iina jabhadii u horseeday aafada Soomaaliyeed baad jafaysaan okay nacaybka ninka la yidhaaho farmaajaad heshiis ku tihiin Jubbaland iyo Puntland ay berri uu dhammaan hadduu farmaajo tago idinkaa isnacaya halkiinni bay ka bilaabanaysaa wax inta la soo quman oo idinka dhexeeya ma jiro isaaqa waa hal meel bay degan yihiin interes baa ka dhaxayn karaa waa isku luuqad
qoys kasta oo Soomaali ah marka laga reebo daarood mashaqaas ku dara waa isku luuqad way waa jiraan dadka aan dameerahoodu aynan isgeyin timahoodu si u xirmin waa daarood hawiye waa isku meel majority isaaq waa isku meel gadabuursi waa isku meel ciise waa isku meel raxan weyn waa isku meel qoyska aan isku meel ahayn waa daarood xitaa isku soo gurman kareen marka cudurka mareexaan ama cudurka maxay dhahaa xukun mareexaan ee idinku jira Allah idinka saaro dawladda timaada hawiye ilan hawiye ku sii rabe waxa weeyaan uun abgaal iyo habargidir hadaba maxaad filanaysaan ragga aad maanta sacabka u tumaysaan ee Axmed Madoobe iyo Deni ma u tumi doontaan xusuusnaada hawiyo shalay waxaan soo geliyay hawiye waa dimuqraadi maxaa la socda hawiye xukun kuma fiicno hawiye wuxuu ka jecel yahay qaran inuu dumiyo daaroodna wuxuu jecel yahay waanu xukumayaa dictatori waa ani ra'yayga xalan ka hadlayay okay waxaan idinku celinayaa hawiye wuxuu ku heshiiyey in dawlad kastoo timaade la dumiyo unuka xamar leh ay ku dinto iyo xabad baa mudabad kaaga dhufan ninka ragga ama raganimadu waa inaad ku faantaa in xabad adi lagugu dhufto lagu eriyo raganimadu markasta inaad geesi ahaata ma aha raganimadu waxay ku weeyaan fulaynimada raganimo ah inta badan 3,001 jeer fulay noqo hal mar ma 3,000 oo jeer fulay noqo hal mar geesi noqo raganimadaas hawiyo wax aan faan ahayn daarood baan eeyina madaxtooyada u dhacayna waxaan ahayn oo idin hayaa ma jiro okay tii laydinku caajire to ka daran baad soo hayseen inta fiican ay raali hada okay hal xabada in kasta oo daarood oo xamar joogo qof Soomaali ama qof hawiye ah ama ciidan xabada ku rido markay noqoto xabad ka dhaqaaq tag meeshaadii unuka leh meesha oran lahayd tag dardaarankaygu waa intaa caasimada xageengeyna waxa ka soo hadashaan inta ka badan 30 sano aan qabtay 31 sano ayaan qabtay haddii hawiye isbedeli waayaan fiir saamo jacala caasimada 30 sano maalintii siyaad barra cararay cali mahdi iyo aydiid khilaaf ka dhaxeeyay may maalintii maxamed siyaad barre afgooyo ku soo noqonayeen operator-ka ahaa ayaan saraakiil fara badan oo daarooda bay hor fadhiyay si u fikirayaan ama si u hadlayaan waa kuwii dalka xukumayay waan ma tagay hawiyan baaray kaba sii daran hawiyan baaray kaba sii daran waxaan idin kula talin hawiyo xukunka farmaajo aad ku ordaysaan ka jooga waa guuldarradiina waxaad keentaan nimanka reer waqooyi ee sharafta leh reesha isaaq maalinta ay ninkii gadabuursi keeneen haddii ninka aan la keeni lahayn isaaq uu israamsan lahaa uu isdhamayn lahaa hawiyo waxaan kula talin farmaajo waad ka eriysaa meesha soo maaha inteydaan ka eriyin nin aan hawiye ahayn daaroodna ahayn raadiya tilmaan ma idin siiyaa labadaa nina gadabuursi waan ugu shubay labadaa nina gadabuursi oonan jeclaysan khudbadooda ku aadan farmaajo cabdi samatar shalay aan ila soo diray oo wareysi laga qaaday tanaasulkii farmaajo uu tanaasulay uu ka noqday baarlamaanka ayuu dhaleeca kor ka saaray dhibic ka lumay labadaa nina gadabuursi waan jeclaan jiray ilaa haddana waan ugu shubayaa professorka waxaan leeyahay hal keeno doorasho la'aan hal keeno hawiyo labadaa nina gadabuursi mid doorta keena sidii ay isaaq u kala badbaadeen nin gadabuursi u kala badbaadiyay ninka gadabuursi nimanka gadabuursi hal idin kala badbaadiyo hana ka shaqeeyo Jubbaland koonfur iyo waqooyi bal in la isku soo celiyo qabiilooyinka aan leeyahay Soomaali waxay badbaadinayaan raxan weyn baa kamida dir baa kamida gadabuursi baa kamida labada aanan rabin in la keeno lagu fikiro waa daarood iyo hawiye
ولي هوية دم وما أها إلا كان هديك هدي لقى أبجال حبر جدير هلفا وقالي ونو كالي ولا نسمش ما أقرانس أنت النعبي فرماجك بدو من نعبي هدي حبر جدير أبجال ما أقرانيا مرصدة هوية كلا إسكوا ضعف هوية مصلحة دينه كان صدا نين ترتنك ما ترتن أدو عينه أو بدبادية حمر أو بدبادية هوية دور الشو مرة فرماجو هكتناسلي وتناسلي نبكو هالكي مكبل عبانيا شاكدو معها فرماجو دور شو ديدية شاكدو فرماجان للرمين ترتن لما جيلي كران وما دام أغنية ترتن إن اللي جيلي كران ما أوران كران ويلو قوينيا لبدي جانجانا هالكي بكم ميسان معارض كون هذا السوق وحي سوق اللي روب لو كتخلصيا وبرتي وجوج هذا عالم كي فرماجد كسور جدي محي برشر صار أيام معارض of course وحي ربان بربركة وحي ربان كاركود إنه حقدان ملاقي إنه قرطان وكل حيبته إنه سونكو آسان دولة الآن بي ربان فرماجي كرهين مربان دولة ده شيء يجيلانكم مربان نصومالي نما كبركي أما شرفتي صومالي نما كدريميان نسجودي ربان أوكي كوا سجودي يا أدق على ما حنيها الصومالي أولى أوكي إلي بيسجودي جرا إلي بفرط ويا جرا صوما حسن شيخ إنكي درجح كل عياري جيجا أنا واحد قدي صوما شريف إنكي حابة صحيح ما أوجين هذا صومالي لمن كان معارض كأكوت المانتان مربان درشوا أوكي وحاسب قول درعة ورنين لجعلاده سيدي فرماجة لجعلاده أو بحثاً أو سواء عدي مجرو بروفيسور كاستقيد بخور كسارة يا فرماجة أوكي حتى بقى هندو عينه لما كان يجد بورسي يقول الله مدى هلا كانوا أهل إله باشا نوحي هكلا بدبادية هوية واحد دورة شقة أو يخربان مجرتني منك انت سانو سو غلي ciidan badana maanta lagu hanjilay dawladda soo dhiibo nin kasto imisaad ku leedahay degmo kasta imisaad ku leedahay hadaba qabiilku 3001 saldhig buu leeyahay dhasiisku 3000 oo saldhig buu leeyahay xaquna hal saldhig buu leeyahay marka inteen jaaraysanaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh